لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaan rabaa maanta in aan wax yar wax ka sheego insha allahu tacaalaa. reebid la reebay in laysku caroodo iyo in laysgooyo iyo in dhabarka laysku jeediyo inta laysku xanaaqo baa rabaa in aan ka hadlo reebitaan la reebay. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innama almu'minuuna ikhwa, mu'miniinta iyaga unbaa walaalo ah. Marka maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa yacnii mu'miniinta iyaga ayaa walaalo ah, yacni diinta ayay walaalo ku yihiin, diinta islaamka. way isku naxariisanayaan, isku caroon maayaan, isgoyn maayaan, dhabarka isku jeedin maayaan, isku xanaaqi maayaan, isnici maayaan. mu'miniinta waa kuwo yacni isjecel weeye. marka mu'miniinta iyaga unbaa walaalo ah. ilaahi subxaanahu wa tacaalaa sidoo kale wuxuu yidhi muxammedun rasuulullah, nebi muxamedna waxaa weeyaan waa rasuulka alleh. waaladiina macahu ashidaa'u cala alkufaar, kuwii isaga la jirayna oo isaga maciisa ahaaday oo yacni nebiga calayhi salaatu wassalaam, kuwii nebiga sal ly wasalam la jirayna waa kuwo yacni ku adag. maxay ku adag yihiin? cala alkufaar, gaalada korkooda waa kuwo ku adag wey. ruxamaa'u beynahum, waa kuwo dhexdooda isku naxariista. ummadda nebi maxamed waxaa lagu yaqaanaa inay yacni dhexdooda isku naxariistaan, isjeclaadaan, iscaawiyaan ayaa lagu yaqaanaa. saxaabiga la yidhaahdo anas, allah kalaal noqde, wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa wuxuu yidhi ha isku caroonina oo ha isku xanaaqina. sidoo kale wuxuu nebiga calayhi salaatu wassalaam ha isxasdina, xaasnimo ha isku sameynina. dhabarkan ha isku jeedinina, intaad kala xanaaqdan ha kala tegina, dhabarka intaad isku jeedisaan. sidoo kale wuxuu nebiga calayhi salaatu wassalaam ha isgoynina. wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaad ahaataan addoommada allow kuwo yacni walaalo ah noqda. sidoo kale nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi qofka muslimka ah xalaal uma ahan inuu yacni ka haajiro, uu ka tago walaalkiis fowqa 3 3 maalmood wax ka badan, 3 maalmood wixii ka sareeya inuu qofku walaalkiis u xanaaqo, uu ka haajiro, uu ka caroodo, uu ka aamuso uma banaana. lama rabo arrintaas iyada ah. 3 maalmood baa lagu ogolyahay. wixii ka dambeeya, wixii 3 maalmood ku sixiga oo ka dambeeya, waxaa laga rabaa inaad tooba keentid oo qofku walaalkaa usoo laabatid ayaa laga rabaa. xadiiskani waa muttafaq wey. sidoo kale nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi albaabada jannada waa la furaa. waxaa la furaa
maalin kasta oo isniin ah iyo maalin kasta oo khamiis ah albaabada jannada waa la furaa, waxaana loo dhaafaa addoon kasta oo aan u shariig yeelin ilaahi subxaanahu wa tacaala, aan u shariig yeelin oo cibaadadiisa cid kale aan la wadaajinin, aan cid kale aan u shariig yeelin ayaa loo dhaafaa, loo dembi dhaafaa. ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa'u, ilaa nin mooye ahaatay isaga dhexdiisa iyo walaalkii ay yacni ka dhexayso shaxnaa'u, colaad iyo cadaawad ka dhexayso. maalin kasta albaabada jannada ayaa la furaa, maalin kastoo yacni isniin kastaan ka wada, maalin kastoo isniin ah iyo maalin kastoo khamiis ah albaabada jannada waa la furaa, waxaana loo dhaafaa addoon kasta oo aan ilaahi subxaana wa tacaala u shariig yeelin, cibaadadiisa aan cid kale u shariig yeelin ayaa loo dhaafaa, dembigiisa loo dhaafaa. waxaa laga soo reebay ilaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa'u, ilaa nin mooye ay ahaatay dhexdiisa iyo walaalkii, isagii walaalkii ay ka dhexayso mid yacni isagii walaalkii ka dhexayso colaad mooyaane, ka isaga waxaa la leeyahay suga. waxaa lagu oranayaa kuwa iyaga ah suga labada colaada ka dhexayso ee aan heshiiska ahayn, suga ya ilaa ay yacni ka heshiinayaan, ilaa ay ka heshiinayaan. haddaysan heshiinin dembiga waa loo qorayaa, laakiin haddii ay heshiiyaan dembiga looma qorayo. dembigaas oo ah isku dhicitaanka ay isku dhaceen, aamusnaanta ay iska aamuseen wey, dembiyada kale maaha. ee isku dhicitaanka ay isku dhaceen baaba dembi ahba. marka ilaa ay ka heshiiyaan waxa weeyaan suga, ilaa ay ka heshiiyaan labadan qof isku dhacsan ee colaada isku haysa ee aan isla hadlin, suga ilaa ay ka heshiiyaan. haddaysan heshiin dembigu waa u soconayaa, dembigu waa loo qorayaa, laakiin haddii ay heshiiyaan dembiga waa laga tirayaa. xadiiskan imaam muslim baa wariyey. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa videon. qofkii yacni daawada ee soo gaara fadlan subscribe ha saaro, asxaabtiisana ha ugu sheergareeyo, ajirna wuu ka helaya qofka, ajir iyo kheyr buu ka helaya insha allahu tacaala. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waana ceeb qofka waxaa weeyaan yacni inuu qofka kale walaalkiis ah u caroodo, inuu qofka kale walaalkiis ah gooyo, inuu qofka walaalkiis intuu ka xanaaqo dhabarka u jeediyo ama uu ka aamuso oo colaad u qaado. waxaa weeye waa arrin aan diinta ogoleen, waa arrin aan diinta ogoleen. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum.